ka joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo idinka imanaya studio-ga magaalada London. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliland u dul qaadan doonin in qaranka la kala qaybiyo isla markaana lagu quraabto magacyo aan jirin. sidaana wuxuu madaxweynuhu ku sheegay khudbadsaneedkii dastuuriga ahayd ee uu ka horjeediyay labada gole ee baarlamaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. xubno ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku taageeray nidaamka qorshaha cashuur ururinta ee wasaaradda maaliyadda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa sheegay in aanay dawladda Soomaaliland u dul qaadan doonin in qaranka la kala qaybiyo isla markaana lagu quraabto magacyo aan jirin. sidaana wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ku sheegay khudbadsaneedkii dastuuriga ahayd ee uu ka horjeediyay labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. warkaas oo dhameystiran waxa noo haya wariyahayaga Saciid Maasim. fadhigan wada jirka ah ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland uu shirgudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u jeediyay khudbad sanadeedka dastuuriga ah taasi oo uu kaga xog waramay waxqabadkii xukuumadda ee sanadkii 2011 iyo qorshayaasha ku taagalay sanadka 2012. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silaayo oo khudbad dheer halkaasi ka jeediyay ayaa ugu horreyn sheegay in Soomaaliland ay tahay qaran 20 jirsaday oo qaangaar ah, qaran ay dadkiisa iyo dawladdiisuba markasta iyo goor kastaba u soo jeedaan. waxaana uu tilmaamay 20kaasi sanadood ee Soomaaliland ay jirtay shacbi iyo dawladba ay halgan ugu jireen dadaalka ay ku xaqiijinayaan qarannimadeeda, adkeynta nabadgelyada, kor u qaadista adeegyada aasaasiga ah ee waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale. waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay la timid siyaasad cad oo ku salaysan nabad ku wada noolaanshiyaha dadyowga caalamka iyo dawladaha jaarka ah, isla markaasina ay maanta marayso Soomaaliland meel aan indhaha laga qarsan karaynin maadaama ay buuxisay ayaa uu yidhi shuruudihii looga baahnaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa uu ka hadlay arrimaha shirkii Taleex oo uu sheegay in uu ku bilaabmay jawi nabadgelyo oo beel ka mid ah beelaha Soomaaliland ay kaga arrinsanayeen arrimahooda dhaqan iyo horumarineed. ha yeeshee shirkaasi ay majar habaabiyeen kooxo fidma wadayaal ah oo qaarkood ay hore ugu caanbaxeen ayaa uu yidhi nacaybka Soomaaliland. shirka Taleex wuxuu ku bilaabmay jawi nabadgelyo oo beel ka mid ah beelaha Soomaaliland ay kaga arrisanaysay arrimaheeda dhaqan iyo horumarineed inta ay ognahay. waxaa shirka majar habaabiyay koox fidma wadayaal oo qaarkood hore uga baxeen Soomaaliland nacaybka uga caanbaxeen Soomaaliland nacaybka kuwaas oo ujeedadu tahay in colaad ka horiyaan deegaan nabdoon. beesha Sool iyo dhammaan beelaha reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin nabadgelyo iyo horumar kamana muuqato inay xilligan ka soo baxayaan shirka wax lagu tanaado ama ay dani ugu jirto beelaha. dawladda Soomaaliland marnaba ma ogolaan doonto inay qarankan la kala jabiyo, la kala qaybiyo iyo in lagu qaraabto magacyo aan jirin. waxaanu difaacaynaa midnimada iyo wadajirka Soomaaliland intii mas'uulka ka ahayd shaqolkaasna waxaan u aragnaa inay yihiin dambiilayaal qaran. waxgaradka samataliska iyo duqayda reer Sool waxaan ugu baaqnaa inay ka feejignaadaan iskana jiraan fidnada ay la wareegayaan kooxda ku soo duushay wadajirka ummadda. madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in ay hubaal tahay in cadawga Soomaaliland tan iyo maalintaasi ay ku foognaayeen hagardaamooyinka ay ku waxyeelanayaan himilada ummadani ay gaadhay. waxa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka waramay qorshayaasha sanadka 2012 isagoo xusay in la diyaariyay miisaaniyadda sanadkaasi 2012 taasi oo dakhliga u daraskeedu noqon doono
540 bilyan oo shilin Somaliland oo marka la barbar dhigo tii kal hore ka badan 10%. waxaana madaxweynuhu si gaar ah uga hadlay waxyaabaha loo qorsheeyay dhinaca ammaanka iyo difaaca qarankan ee sanadkan waxaa muhiimadda koowaad siin doonaa kobcinta ammaanka kor u qaadidda difaaca dalka si loo helana waxaanu tayayn doonaa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxay xaq u leedahay difaaca xuduudeeda sugan kuwaasoo laba taabtaan ah waxaana diyaar u tahay inay iska difaacdo cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimadeeda golayaashana waxaanu ka rajaynaynaa xaalad kasta oo timaada in aad nagu garab gaashaan mudane axmed maxamed maxamuud Silaanyo waxa uu sheegay in la qabanayo sanadkan doorashadii dawladaha hoose iyadoo la tix raacayo go'aankii golaha guurtidu ay ku meel mariyeen isagoo geesta kalena ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta waxaanu tegaynaa madal kasta oo danta Soomaaliland ku jirto waxaanu hor fadhiisanaynaa cid kasta oo aan u aragno inay dan ugu jirto qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliland gudaha iyo dibadda inay ka qayb qaataan ololaha aqoonsi raadinta Soomaaliland madaxweynuhu uu shaaciyay in ay ku hawlan yihiin in shaqaaburis la sameeyo dhalinyarada intii awoodooda madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Silaanyo waxa uu iftiimiyay in kal hore uu labada gole ee sharci dejinta u jeediyay khudbad sanadeedka taasi oo xambaarsanayd xog waran buuxa oo la xiriira duruufihii markaasi yaalay ee xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya ay la koosatay sidii ay uga dabalatay iyo ballanqaadyadii tirada badnaa ee hortooda uu ka sheegay in ay xukuumaddu qaban doonto sanadka 2011 isagoo xusay in ballanqaadyadaasi fulintooda uu soo kala horreysiyay sidii ay ugu kala muhiimsanaayeen ee baahida dalku ahayd isla marhaantaasina awoodda dhaqaale ay noo saamaxaysay madaxweynuhu waxa uu sheegay in ballanqaadyadaasi 85% ka mid ah ay qabsoomeen oo ay sidii loogu talagalay u fuleen halka 10% gacanta lagu hayo isla marhaantaasina uu ku rajan yahay in ay maalmaha soo socda dhammaadaan isagoo intaasina raaciyeen 5% kaliya uu filayo waxa aan ka qabsoomin ku talagalka xukuumadda madaxweynaha Somaliland waxa uu ka hadlay arrimaha nabadgelyada waxaana uu sheegay in ay tahay halbowlaha in xiriiriya isla marhaantaasina ay tahay waxa ugu qiimaha badan ee aynu haysano waxaana uu intaasi ku daray in ay ina soo mareen dhowr shaqaaqo oo ay xukuumaddu ka howlgashay sidii ugu wanaagsanayd ee lagu xakameyn lahaa loona baajin lahaa dhiigsii data isagoo u mahadnaqay mas'uuliyiintii odayaashii waxgaradkii iyo culimadii ka howlgashay waxaana uu howlo nabadeed laga sameeyey ayaa uu sheegay madaxweynuhu Widwid Laascaanood Ceeri Gaabo Gabile iyo Dila dhammaantoodna waxay ku dhammaadeen ayaa uu sheegay safgarad iyo jawi nabdoon iyadoo aanu ka ruqaadnay ayaa uu sheegay howlaha adeegyada nabadgelyada madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Silaanyo mar uu ka hadlayay dhaqaalaha waxa uu tilmaamay in dhaqaaluhu yahay lafdhabarta horumarka waxaanu sanadkii hore aanu miisaaniyadda kordhinay ayaa uu yidhi 70% marka loo eego miisaaniyadii kal hore ka horreysay waxaana soo xorootay ayaa uu yidhi oo daraskii la qorsheeyay qadar aad u yar mooyaane madaxweynaha Somaliland waxa uu xusay in sanadkan ay soo daabaceen lacagtii Somaliland ee 1,000 iyo 5,000 iyadoo ay timi baahi lacageed lana hor keenay golaha baarlamaanka oo ansixiyay badalada lacagtii gimbaarta ahayd ee laga isticmaali jiray gobolada qaar taasi oo culays dhaqaale lahayd isla marhaantaasina maanta Somaliland ay tahay wax lagu furaxo in laga isticmaalo guud ahaanba lacagta Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu khudbadiisa kaga hadlay dhinaca waxbarashada waxaana uu sheegay in ballanqaadku uu ahaa in dugsiyada dawladda loo shaqaalayo 1,500 oo macallin oo cusub iyadoo la shaqaalayay 1,700 oo macallin oo ah tiro ka badan tiradii la qorsheeyay isla marhaantaasina bilaash laga dhigay waxbarashadii dugsiyada aasaasiga ah arrintan in ay culays weyn ka qaaday ayaa uu yidhi danyarta oo inta badan iyagu aad ugu nuglayd waxaanu fursad u siinay ayaa uu yidhi arday badan oo ay ku adkeyd in ay helaan xaqa ay u leeyihiin waxbarashada waxa kale oo aanu ballan qaadnay ayaa uu madaxweynuhu sheegay inay xukuumaddu kafaalo qaadayso oo lacagta fiiga jaamacadda ka bixinayso 20 arday
ee imtixaanka dugsiyada ugu sarreeya dowladda iyo weliba 6 hablood ee ugu sarreeya imtixaanaadka dugsiyada sare iyadoo laga bixiyey jaamacadda ballanqaadkaasi oo uu ku safeeyey in ay fushay oo 150 arday gaaraysa sanadkan fiiga laga kafaalo qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu khudbad sanadeedkaasi ku soo qaatay dhinaca xoolaha waxaana uu sheegay in sanadkan ay ka dhoofeen dekada magaalada Berbera xoolihii ugu badnaa taasi oo muujinaysa kor u kaca dhoofka xoolaha waxaana madaxweynuhu uu xusay in isbedel ballaaran ay xukuumaddu ka samaysay mas'uuliyiinta guddida cadaaladda maxkamadaha sare iyo dhammaanba maxkamadaha rafcaanka gobolada iyo degmooyinka dalka madaxweynaha Soomaaliland waxa uu khudbadiisaasi aad ugu dheeraaday oo uu kaga hadlay waxqabadkii wasaaradaha biyaha beeraha warfaafinta ciyaaraha siyaasadda dibadda wadooyinka iyo arrimo kale waxaanu ballan qaaday in dib loo bilaabi doono barnaamijkii iskaa wax u qabso isla mar ahaantaasina la abuuri doono hay'adda xaqsiinta ciidamada qaranka isagoo gabagabadiina baaq u diray beesha caalamka iyo qaramada midoobay waxaanu diyaar u nahay inaanu kala shaqeyno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago sida ammaanka la dagaalanka burcadbadeedda iyo degaan dhowrista waxaanu soo jeedinaynaa dowladaha caalamku inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga reer Soomaaliland ayaa ka talinaya madaxbannaanidooda sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay dalalka deeq-bixiyayaasha iyo hay'adaha samafalka inay si muglan noogala qayb qaataan dib u dhiska qaranka xubno ka mid ah golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku taageeray nidaamka qorshaha cashuur ururinta